hal ku dhigaas inaan qaadano midaas way mid kale waxaan soo qaadan khudbada labaad arrin dadku markay muddo dagaal ku jiraan dagaalka lama sii wado nafsiyaadka dadka ilaahay uu yaqaana markii dagaalkii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa ay iskaga celinayeen oo ay dagaalamayeen oo jihaadka ay ku jireen haddana dadka waxa la gelinayay rajo in dagaalkan lagu jiraayo inuu san ahayn oo waxa leeyahay waa loo bishaaraynayaa nasrun min allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minina mar waxa la leeyahay عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم إلهي وحمدن ياهي إنه إذن هشيسيو أو دقالك لغا بخو معناها رجاء دقالك إنه دمان دونه نفتن بني آدم كول قدير سن دقالك جرين نبي صلى الله عليه وسلم صدح 10 سنة أو جوغي مكة المكرمة قبل الهجرة 6 سنة أو مدينة أو جوغي 19 سنة كدب أيا وحو go'aansaday inuu soo cumraysto asagoon dagaal u soconin markay inuu soo aado markii quraysh ay maqashay uu soo dhow halkan uu soo degay Xudaybiya jooga yaa go'aan waxay ku gaareen inuu san soo galin oo meesha ka celiyaan habkay ugu celin lahaayeen asagoo dagaal kuma soo talageline dagaal ay soo diyaariyeen ciidankooday ratibteen jidkii ay ku soo bixinaan ay diyaarsadeen ciidan xoog leh ay soo diyaariyeen nabiguna hub ma wato in yar oo safarka lagu ilaaliyo ma ogiye hub kumuuna soo talagelinba wuxuu wadaa geel hadiya oo Kacbada u socda waa umru u socda dagaal uma socdo dagaal mar rabo laakiin way qabsatay oo in lala dagaalo ayaa la go'aansaday markaas wuxuu ku yiri kalimadii caanka ahayd asagoo reetolkii Quraysh fiir ayagoo gaala ah ayuu nabiga haddana wuxuu xeerinayaa in la wada dhashay oo quraanka uu tilay waxaad ku tiraahdaa Quraysh say dibka kaaga daayaan qul la asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba xoolay siiyadin mali laakiin waxaan ka rabaa oo kaliya inaan qaraabanahay daraadeed inaad igu deysaan aan fariinta Ilaahay gudbistay qaraabada waa ilaalisaa qaraabanimo igu dhaafa Ilaahayna uu in amro qaraabada wuxuu yiri wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Ilaahayna ka cabsada qaraabadana ka cabsada leeyahay Ilaahay laga cabsada la garay qaraabada see looga cabsan qaraabada waxa laga cabsan in la gooyo in wax la yeeleeyo in la dhibaateeyo waa dambi aad u weyn waa kabaa'irta ka mid tahay qaraabada in la gooyo Soomaali meesha ay ka baabaaday waxay tahay qaraabadii intay gooyeen oo kaliya kuma ina deynina intay gooyeen hadana sii dileen bal intay gooyaan waxba ina siinin oo war waxba ku siin maay kordhaaf kaliya kuma ina joojin intay u diideen waxoodii ayay hadana dil ugu sii dareen marka dambiga dhacaaya waa wax aad u dhibaato badan nabiga sallallahu alayhi wasallam marka qaraabanimadka uu ixtiraamay uu xeerinay wuuna inala dardaarmay qaraabanimadku say muhiim u tahay wuxuu yiri Masar ayaad furan doontaan Masar markaad furataan qaraabanimo ayaa idin ka dhaxaysa iyo xididnimo idin ka dhaxaysa intaas ku ilaaliya oo ihsaan ugu sameeya qaraabanimadka naga dhaxeeya muxuu yahay yaani nabi Ismaaciil iyo xididka naga dhaxeeyana nabiga ka guursaday Maariya talqibdiya masaari ayay ahayd waa meel foog meesha uu ka hadlayo markii Quraysh uu maqlay way soo baxday dagaal in diyaar u tahay yu kalimadan ayuu yiri wuxuu ku yiri yaa wayxa Quraysh halaageede laqad akalatumul harb dagaal ayaa dhameeyay Quraysh waligeed ma dagaal bay u taagnaanay lama rabo markay dagaal ku dhamaato nabadu la rabaa wuxuu yaa wayxa Quraysh laqad akalatumul harb dagaal ayaa dhameeyay maada calayhim maxaa korkooda ah law khallu bayni wa bayna sa'ir al-arab haday noo isu deyn lahaayeen aniga iyo carabta kale oo ay dhihi lahaayeen Quraysh annagu kuma haysanay qaraabaan nahay Quraysh baan isku nahay bal annagu aan ku deynaynaaye diintan adigu aad wado iyo carabta kale ee ayaduna diintan diidan bal horta soo kala baxa oo Quraysh ayadu ay kayd ka gasho ama sida dhalinyarada banooniga yiraahdaan finalka inay fariisato oo in hadda dagaalka soo gelin ayada oo waxa dagaalka ku jira ay noqoto nabiga asxaabtiisa iyo carabta kale oo aan Quraysh ahayn law khallu bayni wa bayna sa'ir al-arab haday noo isu daayaan maxaa dhacay marka wuxuu yiri fa inhum asaabuni qabaa'ilkan kale carabta ee Quraysh aan ahayn haday aniga ijabiyaan aniga asxaabtayda intii lagu goobto qabaa'ilka carbeed ay noogu isku tagaan hadii ay najabiyaan kana dhalika alladhi aradu Quraysh waa siday rabtay kooxadi ku soo socotay hadii waa laga badiyay ha laga badiyo hor hoos socotay waa Soomaa marka hadii aniga ay asiibaan oo ijabiyaan qabaa'ilka kale ee carbeed Quraysh waa siday rabtay hadii si anigu aan ka guuleysto carabtii kale oo aan meel soo saaro oo wax dhaqaaqayo oo iga hor imaanayo oo qabaa'ilka carbeed la waayo oo ka soo guuleysto oo waxa soo haray ay noqoto Quraysh laba mid ah u furan markaas ayagoo iska sii nastay oo ruux uu ka dhimanin anigoo soo rafaaday oo qabaa'ilka carabta san ula dagaalayay wax iga soo dhinteen
oo soo dagaal ku soo jiray ayaga oo marka arkayna kuwii soo meel soo saaray inay dhahaan war carabtii kale dhanbu meel soo saaray nin la hor istaagi kara ma ninkaane islaamkan uu wado waxa uu iska wata meehe ilaahi baa lehe waa loo soo gargaaray ma celin karnaa ay islaamka iska soo galaan hadaan guulaysto dakhalu fil islaam waafirin ayagoo badan oo uusan qofna ka dhimanin ay islaamkii guulaysay ay soo galayaan haday diidaan islaamka inay soo galaan haday saayeli waa islaamka soo gali waayeen qaatalu markaas ay dagaalamayaan wabihim quwwa ayagoo xoog leh ayagoo si nastay oo si diyaar garoobay aniga oo soo rafaaday iyo ayagoo xoog leh markaas aan isalnay may fursad siiyaan soo tala fiican ma waa iga iska daaya aan hawsheeda soo qabs ma rabaan haddana markaas wadada ay ku soo baxeen ma ogiye si uu uga leexdo dagaal uu u gelin ayuu wada kala maray inay kala leexdaan markaas meel cariiri ah oo si lagu fuulay ay dib ay tahay oo buuri dhexdooda ah ayuu nabigu ayuu galay asxaabtiisana meesha ayuu marsiiyay ila dadka qaarkii meeshan cariiriga maxaan u marayn way rafaadeen rafaaday uga baxeen laakiin labadii ciidan la kala badbaadiyay markay banaanka u baxeen yaa nabi wuxuu ku yiri waxa tiraadaan nastaghfirullah da laana dibka ay dibsadeen nabiga meesha uu soo marsiiyay wuxuu yiri maanta waxay la mid ahayd sidii reer banu Israa'iil maalinkii Ilaahay uu ku yiri waqulu hiddatun naghfir lakum khataayaakum waxa tiraadaan mas'alada aan Ilaahay ku weydiisanayno waa dambi dhaaf oo ayaguna intay ay diideen oo fabadala alladheena zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum ay noqdeen sidaas oo kale noqon hadaad diidi lahaydeen istighfaarta ayaguna astaghfirullah banaanka u baxeen markaas hadana hadalkan wuxuu ku yiri maanta la tad'uuni quraish iguma yeerto al-yawma maanta khudatan qorshe yasalunani fiha ay ugu weydiisanayaan silata rahim qaraaba in la isku xiriiriyo haday maanta dhahan isku reer baan nahay aan isdayno illa a'daytum iyaha waan siinaya maanta arin qaraaba xiriirin haday igala hadlaan oo heshiis ku tusinaysa waxba kama qabo marka hada waxaan u soo qaatay arintaasi Soomaalideena maalmahan waxaan maqlaynaa on qaylo iyo buuq siyaasadeed dadku ma ogtahay markay muddo ku jiraan dagaalka ay rafaadaan wax yar ayay u adkeysan kareen bariya ruushka waxa ku dhacday meel oo tiyaatar ah ayagoo meel tiyaatar ku jira koox jabhad ah oo mucaarad ah ayaa tiyaatarkii ku afduubtay dadkii ku jiray markaas ay wax bixi iyo wax soo gali male arkaasa naxdin iyo walwal dadkii way afduubayeen dadkan way hubaysan qaar ay dilayaan xabaday kor u ridaayaan adi 24 saac ayaa xaaladaas lagu jiray markii dambe jabhadii meesha waa laga saaray dadkiina intii dhimatay ma ogi intii kale waa laga soo badbaadiyay soo baxeen markaas waxay ku taliyeen dadkii meeshaas joogay oo ruushka ahaa 24 saac dadkii ku jiray tiyaatarka maskaxdooda jug xoog la gaartay dhakhtar oo xagga nafta ku takhasusay dadkii hal marsiyo oo hala sheekaysto xalayseed noqotay maxaa dareentay cabsi inta ilaa waa 24 saac gudood inagana meeqan tumooya soddon sano iyo ka badan marka miyaynan u baahnayn marka dhakhaatiir in laynoo geeyo walaal Soomaaliyeed bal horta rafaadkii idin gaari bal ka sheekeeya taas waxay daawo ka tahay qofka haduu dhibaato uu gaaro hadii wax ka neefiye la waayo oo lagu caburiyo lay wuxuu noqonayaa uu isla sheekaysanaa cuqdatu nafsi ku dhacays laakiin markuu sheekeeyo salaad inaga waxa badan mobilada gacanta marmar iska qaataa waa la isdhaca dadkuna mushkiladeen ugu dhacday meesha aan gaarnay sidii waxaan noqonay dugaaga xoolaha oo kale xoolaha hadii uu wax soo weeraro looda ama geela ariga waxdu dugaaga haduu soo weeraro oo mid kamid uu qabsado inta kale maxay sameeyaan ama way cararaan ama xagga intay istaagaan ayay soo fiirinayaan sida loo cunaayo walaalkood ee kama celinayaan hadda inaga saas ma noqonno qofa bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bix intii u dhaweyd intay cararaan ay xagga istaagaan isbaaru ku dhacay muujeeda isbaaru ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugadan laga celiyo ma la hadla sidii xoolaha banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhaxgalo ay ku soo xoomayaan maxaa laga qaatay maxaa ka gal wixii laga qaataan laga qaatay war miya marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyaadkooda iyo maskaxdooda caadi ma noqonayso saas daraadeed wax yar ayaa laga yaabaa inuu ka xanaajiyo
xaaladda aynu ku jirno marka waxay tahay tiyada quraysh aan ku sheegayno oo kale inaan dhahno soo nabi muxuu yaa weexa quraysh laqad akalatum al-harb dagaal ayaa dhameeyay quraysh moogtahay inaga saas maniino yaa weexa Soomaaliyiin laqad akalatum al-harb dagaal dhameeyay cidi marka maanta u soo tafaxaydanaysa dagaal hor leh laakiin alxamdulillah dadku waxa way inta ilbaxeen yaa wax u dhaqaaqaya iyo wax dagaal wax ku falaaya ma jirto waxoogaan hadda arkaysaan dadku tartiibtooda isaga dhaqmayaan dadku waxay fahmeen dantoodu inayna ku jirin qof ku danaysanaya inay u daneeyaan oo siyaasadan fiin markay siyaasad la isku haayo ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kali ah jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro haduu rabo jaranjartii laadu ku kiciya dhulku ku soo ridaayay ilaan kor uu ku fuulay moogtahay dib dambe looma arkaayo kor soo ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku iimaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor dhulka ku riday yuu soo qaadana meeshuu raba inuu saaro marka hadana oo yiraahdo reerkeeni si xun loo galay waxba looma gal adaa lagu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adile dhuuqay adima waxna siisay anaga kisti markaa weysay aan dhahaamiya kale jaranjar hadana ay noqda marka dadku way diideen inay jaranjar noqdaan waati markaas aan ku celin jirnay oo dadku intay wax fahmeen waan soo jeedaa indhaha faraha gelinti Soomaa dadku way soo wada jeedaan marka cid indhaha faraha laga gelin karo ma jirto waxay ku roontahay marka walaaltinimo waan isfahamsan yahay waxba la iska ma qaaday meeshaan in walaaltinimo la raadiyo hadalku ka macaan yahay la isdhaho aan maxay ahayd la iscaayin aan is aflagaadeynin caayida iyo aflagaadadu waxbay sii xumaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wax sadaqaysta hadaydan waxba heli karin xataa fa bi kalimatin tayyiba war wanaagsan isdhaha ilaahina wuxuu yiri waqulu lin-naasi husnan dadka war wanaagsan dhaha waqul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzaqu baynahum adoomahay waxaad ku tiraahdaa hadal wanaagsan is yiraahdeen marka cid walba oo hadal wanaagsan iyo ummadda isu soo dhaweynteeda ka sheekaynaysa dadkaas la taageero waliya waa mahadsan tahay ummadda isu soo dhaweynteeda ayaan taageersanahay qof kasta oo ka urkacsanaya dantiisa gaarkaasi ugu gaaro inuu dadka ku kicsado in la yiraahdo walaalow raalli ahaw meeshaas shalay ayaan ku ngownay oo aan aragnay qabiil u roonaadayna ma jiro cid wax u tartayna ma jirto dhalinyarada waxa laga faa'iideystaa intay caafimaad ka qabaan markay dhaawacmaana aabahoodii hooyadood ay ka dhaawacmaan oo ayaga ayaa daaweysta haday dhintaana aabahoodii hooyadood ay ka dhintaane qofka dagaalka gali kama dhintaan qofkii dhintayna sariirtiisa ayaa laga taba oo ka maqan yahay marka ayaan wax been la isu sheegin dadkaan waxay u baahan yihiin in dadka la dejiyo in walaalo la ahaado meel loo kala socdo male lama kala guuraayo dhulkaan Ilaahay nagu abuuray lama kala jiidan karo marka intaan colaad iyo iscaay iyo rafaad oo dhib aan ku joogi lahayn inagoo walaalo inaan ku joogno ay roon tahay laakiin aqliyada dadkeena waxa in badan ku bees garaysmay wixii ay soo arki jireen oo ahayd raganimada waxa loo yaqaanaa wax iska celi markaas meel wax la iska celiyo meel aan ahayn ayay wax iska celinayaan in wadankii la dhiso oo horay loo socdo hadii la diido wax iska celin ma taas kii diiday in wadankii la isla wado oo la isla lahaado oo ummaddu ay wada socoto kii diidani raganimo ma taas ayada raganimadu waxay tahay in wadanka wixii dantiisa ku jirto hatta hadii ay keenayso mid gaarka adiga ku ah inayna markaas dan ugu jirin laakiin danta guud ay dan ugu jirto waxa raba danta guud daraadeed inaad mid yar u liqdo laakiin hadda waan isdaba marsiinay waxaan leenahay bal inta aan danta guud iyo Soomaalinimo la gaarin anaga maamulkeena qabiilkeena xaafadeena maxaan ka helaynaa koow laba saddex markaan fiirino ummadda guud ahaan waxbay ka heli waxaas ay ka heleen waxba inaga soo gaari laakiin wax ay yimaano inaga inoo gaar ahood toos inoogu imaanaya meesha kama muuqdo saas daraadeed aan qaadacno wax dan on kaleena ma jirto qofkii sidaas sameeyo asaa ku ceeboobi doona maxay hadda bulshada Soomaaliyeed waxay u badan tahay dhalinyaro boqolkiiba 70 waa dhalinyaro marka dhalinyarada waxa la yiraahdaa odayaal waqtigoodii soo qaatay waqtigiina ayna qaadanin oday sii socdo waqtigiisa dhamaystay yaa hadda wuxuu rabaa hadana siyaasad kale inuu dhalinyaradii iyo dadku yiraahdaye aniga soo raaco saay adeer waqtiga waad soo qaadatay wadankeena inaan dajino oo caadi uu noo noqdaan rabnaaye hadaad wax maslaxa oo ummadda u haysa aad haysana keen hadii wax qalooc ummadda si kala fogeyn aad wadidna naga raali ahaw in la dhaxal rabaa marka ummadda xilliga ay gaari lahayd qofka gardana naga raali ahaw inay dhahdo ayaa soo dhow nabiga nuux sallallahu alayhi wasallam ida haabat ummati an taqula lidh-dhalimi ya dhalim haday ummaddeedu ka cabsato
قفك قردر إني ترى واد قردر أنت نججوك فباطن الأرض خير لها من ظاهرها دولك هوستيسا أو دمشقة أيا وخير بدن دولك كركيس بمعنى أن دول كنا ولاته وحكفي عن سعزية شرف أن تكون دمته دولك هوستيس إن أتقش مركب أمة الإسلام كأمة دولي أقلات ما وحقا ولا يرى على ذين كرا أنت يسقسو آذيسو لكن مالك الدنبه وحيون ما دون تين دهان ميلين وحاس هذا يمردك سوى جيسان وميلين دهان عد وحكا قاضي سمجرت إذا الشعب يوما أراد الحياة شعبي وهدوم مالين قو أنصد إنه النول هذا نولشنا معها يعني نفع يوجرت معها نولش الوشة جاي ونولش حرية ده قف قو إنه حر هذا هذه لكن لا أدون صنايو أو عنتلا الصينايو أو عبيتان الصينايو أو لهم حكام كان هذه وضعنا يسوى ذعبي سواكن أو مسير كيس أو سنتلا كلهين أو حرية صورة بنوه اللي كريني أو ضد وكعب صنايو تحس نولل معها ما كان نولش حتى ونولش رنتا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد لليل أن ينجلي شعر كاس يعني تذكر حركها كل حرن لا بد وين كلاقوان مركز دمبه وإلى هذا ميلين ظلمك هبينك مجدي سنة مجدي اللي جري مايه ولا بد لليل أن ينجلي هبينك وينه في الماء مال لوبحه ما تحلق عن مال نبح العين أو حقه ظاهر لها أو بعض الكبرناك وكسر عليها أو قفك بعض الوضع كوجود وديه لها بعض الكاجر نقل الله مر ابنه تاس يدك أصعدان مرك إلهي نجارش تاس يدا ومدة أننا عن قدم رنو عن حريصنا وحكست أو كلفوين عن كيرالنا وحكست أو ولالتنين الحوجين عينا عن سوق كانوا إلهي سبحانه وتعالى عن برينه إنه إلهي ومدة أننا يسوع عليو ومد يعني ولا لا إسلام كاس كنا قنت إلهي نجدكوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد